Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa Kathuur Technology Channel. Kusoo dhawaada mar kale cashirkeena imtixaanaha ahaa ee barashada video editing-ka. Cashirka maantana waxa uu ku saabsan yahay sidee codka iyo qoraal la isugu dhex wadaa. Waxaad arkaysaa muuqaal socdo oo qof hadlayo oo harta hadalkiisa oo qoraal ah inaad ku hoos qorto. Hadalkii asoo ku hadlayo iyo asigoo qoraal ah inuu hal mar isu soo qormo. Sidee lagu sameeyaa midaas? Tusaale ahaan, hadalka iyo qoraalka isla socdo muuqaal adigu tuso. Muuqaalka waa midkaan. Markii aan shido waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay soo bilaaba intaad u qoslayso wacayo waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tiri adiga qurux waa adiga, sharaf waa adiga. Sidaanoo kale sidee loo sameeyaa? Waxaad aragtaa codka inuu socdo qoraalkana uu la socdo. Qofkii uu hadlayo haddana hadalkiisa oo qoraalna aad asi arkayso. Sida lagu sameeyo waa inaan hadda isla baranaa haddii la yiraahdo. Waxaad soo tagaysaa application-ka. Marka application-ka timaado waxaa laga rabaa marka ugu horeyso inuu codka iyo qoraalka isla socdaan mar walba. Meesha codka ka bilaabanayo waa inuu qoraalkana ka bilaabdaa. Codka markuu dhamaado waa inuu qoraalkana dhamaadaa. Tusaale ahaan, markuu intaad u qoslayso waayo markuu yiraahdo halahaas waa inuu qoraalka qaataa sigana. Meesha ugu horeysa geeyina kadibna waxaad dooranaysaa calaamadan usha ah waa inay mar walba ku taala meesha hadalka bilaabanayo. Markaad dhahdo way socotaa. Meesha hadalka bilaabanayo iyadana waa inay ka bilaabataa. Kadib waxaad dooranaysaa qaybta ay ku qoran tahay text-tida. Markaad doorato qoraalka soo qaado qaybtan add taabo hadane si aad qoraalka soo geliso. Markaad doorato kadib qoraalka soo qoraysa waxaa leedahay cidaad u qoslayso waayo. Kadibna qaybtan color-ka ka sax. Kadib qurux badan saaro. Kadib okay dheh. Marka okay dhahdo muuqaalka soo shidana muga. Intaad u qoslayso wacayo markaas qoraalka iyo hadalka way isla soo baxeen. Marka waxaan rabnaa qoraalka waxaan rabnaa inaan ka dhigno mid animation leh oo animation ku soo gelayo. Markaas ayuu qurux badnaanayaa. Animation-ka cashirka soo qaadano wuxuu ahaa waxaa taageeraynaa qaybta motion-ka. Qaybta motion marka doorano midka ugu fiican dooranayna middan camal okay ah. Kadib muuqaalka soo shid. Intaad u qoslayso wacayo waxaa moodaa inuu speed zaid ku jiro. Intaad u qoslayso muuqaalka soo bilow shid. Intaad u qoslayso wacayo waa midda idana inta ku qor text taga hadana mar kale soo qor waa midda kadib color-ka u sax. Kadib halkaan soo dhigo waa midda fartada yaree animation-keeda sax. Okay kadib soo bilaw. Intaad u qoslayso wacayo waa midda way dhamaatay.
haddana waa gabadha doqor, waa gabadha, waa gabadha kalarka ka bedel, kalarka ka bedel, soo qaad hooskeen halkaan dhig, kadibna muuqaalka soo shid. Animationkan aan saxno. Okay, soo shid. Inta du qoslayso waayo waa midda waa gabadha dumar oo dhan intaad waa gabadha dumar halkaas ayadana la rabaa. soo bilow. inta du qoslayso waayo waa midda waa gabadha dumar oo dhan waa gabadha dumar oo dhan. dumar oo dhan. gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay dumar oo dhan intaad dhex martay. qoraalka oo dhameystirayna. dumar oo dhan intaad dhex martay. dumar oo dhan intaad midda waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tiri adiga dhex martay aad tiri adiga dhex martay. soo gaabi. soo shid mar kale. dhex martay aad tiri adiga aad tiri meesha ka bilaabanaysa raadi haddana. aad tiri aad tiri. soo qabo qoraalka. ku soo qor halkan. aad tiri. aad tiri. adiga kadib farta soo weynayso. soo gaabi qoraalka. intaad dhex martay aad tiri adiga tiri adiga aad tiri adiga qurux waa adiga. adiga qurux waa adiga tiri adiga qurux waa adiga sharaf waa adiga sharaf soo qaad haddana mar kale.
adiga sharaf waa adiga indhahayga midda u roon indhahayga haddana soo qor mar kale. soo shid mar kale. indhahayga midda u roon waa adiga hadalkayga midda u waa intaas. muuqaalka soo shidaya mar kale. ciddad u qoslaysa waayo waa midda waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tidhi adiga qurux waa adiga sharaf waa adiga indhahayga midda u roon waa adiga. qoraalada waxaa la rabaa in hal meel aad isku geyso hal busishay kasoo wada baxaan. midkan waxaa rabtaa inaad kor kasoo baxay hoose soo dhigaysaa. qoraalada waa inay isku mid noqdaan markaas. ciddad u qoslaysa waayo waa midda waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tidhi adiga qurux waa adiga sharaf waa adiga indhahayga midda u roon waa adiga hadalkayga sidaas midda ayaa loo sameeyaa markaad muuqaal edit garaynayso oo qoraal u bedelayso hadalkiisa. qoraal iyo hadal isa wada socdo sidaas ayaa loo sameeyaa. waxaan rajeynayaa inaad aada u fahanteen sida muuqaalka iyo qoraalka codka iyo qoraalka layskula socodsiiyo. waa sidan oo kale waa aad ayay u fududahay. waxaan rajeynaya hadda kadib inaad gacantaada ku samaysan doonto muuqaal qof oo samaystay inaadan isticmaal hadda kadib. marka adigo idinku celiyaa waa midda waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tidhi adiga qurux waa adiga sharaf waa adiga indhahayga midda u roon waa adiga. oo sidaas waxaan rajeynaya inaad aada u fahanteen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.